Barnaamijkan aan ugu magac darnay Sirta Daahsoon Dalka wuxuu ku salaysan yahay falanqaynta xasilooni darada ka taagan dalka Soomaaliya iyo sidee nabad loogu soo dabaali karaa. Ugu horeyn si cad oo aan kagambasho lahayn waxaan u taabanaynaa 3 qodob oo muhiim ah misna raad ku leh nabadda xasiloon iyo nabad darada. Qodobka 1. Dowladda Soomaaliya waa in ay iska ilowdaa wax la yiraahdo shidaal qodis ilaa ay ka noqdaan dowlad isku filan. Haddii xaaladda maanta taagan looga maarmi waayo shidaal qodista. Qodobka 2. Waa in ay iska diiwaangeliyaan OB. Ogolaashana ay ka helaan OBET. Misna waa in ay u hoggaansamayaan awaamiirta dowladaha soo saara shidaalka iyo adeecida amarka dowladda Mareykanka. Haddii labada arrin ay hergelin weydo dowladda Soomaaliya. Qodobka 3. Waa in ay ogaadaan in ay u bareerayaan sidii ay cadow ugu noqon lahaayeen lacagta doolarka. Sidaa darteed waa in ay u diyaar noqdaan xasilooni daro abid ah. Markii aan ka reebno qadarta Alle. 3 qodob aan soo sheegnay maxaa cadayn u ah. Tusaalaha 1. 1962 Wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdi Rashiid Cali Sharma Arke iyo wafdi uu hogaaminayo waxay aadeen xafiiska qaramada midoobay ee ku yaala dalka Mareykanka. Iyagoo u socday ka mid noqoshada qaramada midoobay ee dalka Soomaaliya. Una soo cadeeyaan Soomaaliya in maanta ay madax bannaan tahay una geeyaan calanka astaanta u ah dalka Soomaaliya. Looguna diyaariyo kursiga xaqa ay u leedahay dowladda dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Cabdi Rashiid markii uu ka qayb galay soo dhaweynta golaha qaramada midoobay waxaa halkaa lagu baray madax kala duwan iyo shakhsi gaar ah kaasoo ahaa xurnimada ka hor ergeyga matali jiray kursiga dalka Soomaaliya oo hadda ka hor madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya ee ku meel gaarka ahaa Cabdullaahi Ciise si sharaf daro kaga kacsaday kursiga isagoo cadeeyay shakhsi ajaanib ah in uusan matali karin Soomaaliya oo uu isaga oo ah Cabdullaahi Ciise uu mudan yahay kursiga dalka Soomaaliya. Misna xaadirna uu u yahay inuu matalo dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Run ahaantii xilligaa Cabdullaahi Ciise lagama filayn in uu ka qaybgali doono shirka. Sababta iyo sida uu uga qaybgalay isagoo loo ogolayn in uu ka qaybgalo shirka waxaan si gaar ah ugu u falanqayn doonaa qaybaha kale ee barnaamijka. Soo dhaweyta kadib. Dowladda dalka Mareykanka markii ay maqashay wafdi ka socda dalka Soomaaliya oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdi Rashiid Cali Sharma Arke ayaa waxa ay diyaariyeen casumaad ka socota dowladda Mareykanka. Ra'iisul Wasaare Cabdi Rashiid waxa uu ku jawaabay socdaalkiisa in uu ku salaysnayn casumaad dowladeed. Ra'iisul Wasaare Cabdi Rashiid waxaa amar uga yimid madaxweynaha dalka Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan. Waxaana lagu yiri ogolow codsiga labaad ee kaaga imaanayo qoyska madaxweynaha dalka Mareykanka. Mar kale iyo codsi gaar ah laguna magacaabay qada sharaf socota qoyska madaxweynaha dalka Mareykanka. Ra'iisul Wasaare Cabdi Rashiid Cali wuxuu ku jawaabay in uu u tagi doono misna uu ka ogolaaday casumaada balse waxa uu jawaabta raaciyay in uu u tagi doono xilli uu dhammaysto qorshaha ku salaysan sababta socdaalkiisa uu ugu yimid dalalka Mareykanka. Go'aankaasna waa uu soo dhabeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka. Wuxuuna amray dowladda dalka Mareykanka in ay heegan u ahaato wafdiga uu hoggaanka u yahay Ra'iisul Wasaare Cabdi Rashiid Cali si socdaalkiisa aanu hakad u gelin. Tusaale ahaan wadooyinka caasimadda Washington dartiis loo xiraa dhan walba uu wajihaysto socdaalkiisa. Dabadeed maxaa dhacay? maamulka Washington waxay ku qasbanaadeen meel walba oo Cabdirashiid Cali Sharma Arke ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya uu lugta dhigayo in ay heegan u ahaadaan xitaa haddii ay noqoto masaajidka sida aad arkaysaan. Kala soco qaybaha xiga ee barnaamijka. Fadlan igu sharaf. Subscribe, like iyo share. Mahadsanid.